السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ka hadlo video la ii soo diray oo la igu yiri ka hadal. waxa weeye runtii waa video ka hadlaya wiilasha bajaajlayda ee reer Muqdisho. bajaajlay waa dhamaad, waa inaan u hadalno ummadda Soomaaliyeed haddaanu nahay. beryahan inta hadasha inta maxaan ku iraahdaa codka aan lahayn, inta codka u ah, inta fekerkooda ka dhiibata ummadda Soomaaliyeed iyo dhibaatada lagu hayo, waxa weeye waxay ku mashquulsanaayeen waxa weeye dagaalkii laascaanood. balse xag kasta waa inaan ka hadalno. dhibaatadu laascaanood kaliya ma aha, dhibaatada ummadda Soomaaliyeed lagu hayo way badan tahay, oo weliba ay ku hayaan ragooda Soomaaliyeed, ay ku hayaan madaxdooda Soomaaliyeed, ay ku hayaan xukuumadooda Soomaaliyeed, dhibaatada ay ku hayaan ciidamadan aan akhlaaqda lahayn, asluubta lahayn, ay ku hayaan mujrimiinta ah, dad soo dilay, dad soo xasuuqay. easy bay la tahay inay qof kasta iska dilaan. marka ciidamadan baqaya ee dadka iska tooganaya ee aan rule iyo regulationka aqoonin, ya oo meel rule iyo regulation ka jira aan joogin, ayaa dilaya wiilasha yaryaraa ee bajaajlayda ahaa. wiilasha yaryar ee bajaajlayda ah, bajaajlay waxay u baahan justice. bajaajlay waa in loo hadlaa. bajaajlay xaq bay u baahan yihiin. bajaajlay waa dhammaadeen. inta dowlad soo martay halkaas bajaajlay waa la dilay. wiil yar oo Soomaaliyeed oo bajaajlay ah, dhalinyaro ah, dhalinyaradii cusbeed ee freshka ahayd soo baxaysay ah, dhalinyaradii wadankan badbaadin lahayd ah, dhalinyaradii wadankan u shaqayn lahayd ah, xooggii Soomaaliya ah ayaa la dilayaa maalin walba. wiil yar oo dhalinyaro ah oo tahriibkii hooyadiis kaga ceshatay bajaaj inay u iibiso si uusan uga tahriibin. dhulkaas Puntland waxaa loo yaqaanaa bajaajka hooyo ha iga tahriibin. bajaajka magaciisaaba looga yaqaana hooyo ha iga tahriibin. hooyadu waxay u iibinaysaa bajaaj wiilkeeda si uusan u tahriibin, si uusan ula kulmin dadka magafayaasha ah, dadka manaxayaasha ah, dadka dhiigooda caba, dadka dhiigooda ka ganacsada, dadka bili-aadanka furfurta sidii maxaan ku rahdaa baabuur kharaabay oo kale, dadka isbaar baartiga ka dhigta xubnaha bili-aadanka, dadka bahaloobay ee Liibiya iyo Suudaan iyo Eritrea, Ethiopia dhexdooda ku nool. dadkaas ayay ka badbaadsanayaan ilmahooda. hooyooyinkan bajaajka u baxshay hooyo ha iga tahriibin. marka hooyo Soomaaliyeed oo miskiinad ah oo yaanyo bajaaj ka iibisay, tomaato ay la fadhiyi jirtay qoraxda iyo cadceeda iyo dabaysha iyo dhaxamaha iyo roobka, ayaa maxaan ku irahdaa wiilkeedii lagu shabaxtamaya, xabad lagala daalaya maalin walba. xaq miya? xaq ma aha. askarigu waa inuu ilaaliyo xuquuqda muwaadinka uu u shaqaynayo. askarigu waa qayb ka mid ah dowladda. dowladdu waa inay soo saarto ciidan akhlaaq leh, akhlaaqda ka dhisan, ciidan adaab leh, ciidan maxaan ku irahdaa ishag naxariis badan, ciidan aan aqoon wax dil kaliya, ciidan bili-aadanimo ku jirto, ciidan dadkooda u naxaya, ciidan human being ah waa inay soo saarta. ma ahane bahalo dhiig yacabi ah inay soo saarto kaliya ma ah. waxa weeye ciidamada wiilasha ay dilayaan ha joojiyaan. ha joojiyaan. in la dilo ma aha. qofka istaag dheh. hadduu istaagi waayo mootada ka qaad ka xare.
qabo mootada ka qaad ka xaree inkastoo cabsi ay jirto ciidamadu ay baqayaan ciidamadu waa ciidamo khoof ku jira ciidamo baqaya wey waxay ka baqayaan in la qarxiyo waxay ka baqayaan in la toogto toogasho lagu dilo waa ognahay laakiin haddana saasay tahay waa inay at least isku dayaan in ay qofka aanay dilin in aanay qofka dhaawicin in ay qofka qabtaan ku cabsiyaan jas xabadda ay dhahaan istaag ku fiiqaan istaag jooji intaas inuu sameeyo hadduu joojin waayo waa inay xal kala keenaan waa in la qabto waa in bajaajka laga dhigo waa in la ganaaxo lacag lagu ganaaxo laakiin naf dhan ayaan kow ka siinaynaa baaf xabad waa naga soo horeysaa baaf madaxa ka toog kow ka sii xaq ma ah xaq ma aha waxa dhimanaya waa bili aadan waxa dhimanaya waa dhalinyaradii wadankan difaaci lahayd waa dhalinyaradii wadankan xooga u ahayd waa dhalinyaradii wadankan u shaqayn lahayd waa dhalinyaradii wadankan ilaalin lahayd weeye waxa la dilaya maalin kasta khalad weeye ma soo dhaweynayno waa cambaaraynaynaa waana kasoo horjeednaa justice bayna u baahan yihiin bajaajley waxa weeye I don't know anigu waxaaban ka shakisanahay ganacsatadan wax walba xiratay ee hooyadii ukunta keenaysay xataa ukuntii ka xiratay ayagoo taajiriin ah oo lacag leh oo import iyo export sameeya millionaire ah habartii ukunta keenaysa miskiinadii ilmaha ku korsanaysa school feega ka bixinaysa ukuntii ka xirtay malabkii ka xirtay maxaan ku irada calaaladii ay keenaysa ee la wareegaysa shiidadkii iyo baatiyadii ka xirtay maxaan ku iradaa wiilashii tagaasilayda ahayd ee tagaasida watay tagsiyo usoo degsaday meel walba xiratay kalluunkii xirtay dadkii masaakiinta ah ee kalluumaysan jiray ee laashka xunka ku kalluumaysan jiray ka xirtay kalluumaysigii meel walba ka xirtay waxa anigu ka shakisana yaa kolba ilaahay qof buu iga dhigay yaa ilaahay wixii dambiyana ha iga cafiyay waxaan anigu aad uga shakisanahay inay ganacsato waxaan ka dambeeyaan in ay ganacsato rabto in wiilashaas halka dollar ku qaadayo qofkii oo laga yaabo intay iska tira bateen inba maxaan ku dhadaa maalintii hadday u badato uu soo helo $2 ama $1 iyo bar in ay rabaan in ay ka qaadaan shaqadaas ganacsato ilaahay kama baqayaan ganacsatadii waxay noqdeen caqabada ku jirta Soomaali caqabadaha kamid ah caqabadaha Soomaaliya ka jira caqabad kamid ah ayay noqdeen ganacsatadii ma xishoonayaan nin export import sameynaya oo lacag leh oo maraakiib u soo xiranaysa buuxbuuxda ayaa masaakiinta waxoodii yaraa ay ku noolaan lahaayeen isagii u samaysanaya shirkado isagii soo faragashanaya oo hunguri ka soo raadinaya iimaan alla uur buuxsha war iimaanka alla idinka qad idama dhihi karnee waxaan ma adinkaa ka dambeeya anigu waaba ka shakisana waxaan qabriyada faganaya oo qabuurihii awooyaasha iyo ayeeyooyinka waa hore la aasay qabriga intay ka saaraan habeen barka intay u diraan dadka masaakiinta intay $10 siiyaan ka saara dhahaya jirki qofkii dhintay oo aan la qiimeynaynin meeytidii iyo dadkii dhintay lafaha noqday ee bogcadaha ka dhiganaya maxaan ku dhahdaa jagooyinka ka dhiganaya goofafka degaya ama guryaha ka dhisay shirkadahan guryaha ka wada dhisay dhulka wada qabsanay ku wada habsanay waa ganacsato guryaha dhisayaan dad bay ka iibinayaan miskiinka qabriga ku jira xuquuq buu leeyahay miskiinka dusha socda
ee weli nool ee neefsanayaan xuquuq buu leeyahay. Wadanka wuu u dhashay, wadankan isagaa wax kale ma aha in lagu kortunto. war maxay tahay dhaqankii hindiyaanba ku soconaay, nolol sare kaliya tu hooseba jirin, tu dhexana jirin, علشان تودحي أنا جري نولال سر بس iyo wax baaba ah inaanu noqono miyaanu rabnaa. war dadkayga aan qiimayno, war masaakiinta aan kor u soo qaadno, war muslim baan nahay anagu, hindi oo kale ma nihin. hindida inkastoo muslim ku jiraan, waxa weeye waa inaan noqono ma aha dad aan bilaa diin ah, dad madax isaga tumanaya, dad bilaa damiir ah, dad bilaa maxaan ku iraadaa ii sheeg naxariis inaan noqono ma ah. diinteena naxariis bayna faraysaa, waxayna faraysaa miskiinka inaan taakulayno, miskiinka inaan kor u soo qaadno, in aan sadaqada siino, inaan sekada siino, ma ahane in aan wax walba ka qaadno miskiinka, wax walba kala wareegno ma aha. aniga shaki waxaan ka qabaa dambi wixii ilaahay ga cafiye waa ku soo celinaya in ganacsato ka dambayso, waxaan ganacsato ka dambayso. war hadday ganacsato ka dambayso arrintan ilaahay ka baqa, ilaahay ka baqa. ummadan ha baabi'inina Soomaaliyeed, dawladooy ka qabo, bajaajlay ciidamadan dawladay hoos tagaan, ciidamadu dawladda ka mid yihiin, ciidamadan ka qabo. xuquuqda qofka bini'aadanka waa qiimay leedahay, xuquuqda qofka muwaadinka qiimay leedahay, naftiisu qiimay leedahay. wiilashan la dilaayo ka qabta dawladay, xasan sheekhow ka qabo, adaa madaxii ugu sarreeyay ka qabo. arrintan jooji, ciidamadan akhlaaqa loo yeero, ciidamadan ha la dhaqan cisho, ciidamadan meel kale ha lagu soo tababaro wax kale oo wadan jacayl, dad jacayl, inay xushmeeyaan dadka, inay bini'aadanka qiimeeyaan waa in lagu soo tababaro. ciidamadan saa u dhaqna ma fiicna, ciidamo dadkooda laynaya, gudihii ku laynaya, ma fiicna, wax fiican ma ah. dhiigga qofka islaamka ciyaar ma ah. waay loo dilaya miskiin reerkiisa u xamaalanaya, miskiin hooyadii u xamaalaya, waay loo dilaya. miskiin inta future-kiisa ka fikirayo, lafiisa u xamaalanaya, maxaa loo dilaya? waa khalad. cabsi way jirtaa, laakiin haddana waa in caqli lagu daro. arrintan waa in caqli lagu daro, waa in si kale wax loo xalliyo, waa in si kale wax lasaga ilaasho. ma ahane qof kasta ma aha cadow, qof kasta ma aha maxaan ku irahdaa qof wax qarxinayo. dhalinyarada ha la daayo, dhalinyarada ha ku qasbina inay meel xun galaan, inay tahriibaan, ha ku qasbina. u dhimriya dhalinyaradiina, dadkiina ilaashada. dad ciyaar ma ah, dad la iska dilaayo ma fiicna, dad ciyaar ma ah, dad wax lagu ciyaaro ma ah. ilaahay baa bini'aadanka karaameeyey, ha lagu ciyaarana ma dhihin. naftana ilaahay meeqaan saruu gaarsiiyey, ha la iska dila lama dhihin. waa ogtihiin qofka muslimka naftiisa meesha ay joogto, waa ogtihiin diinta aan haysano maxay tahay. yaa rabbi, Soomaaliye ilaahay aan ka baqno, dawladooy waxaan ka qabo, ciidankan dadka laynaya qabo, xeree akhlaaq u yeel, hala dhaqan cisho, hala siiyo tababaro, halala hadlo, advice hala siiyo. acuudu billaah. war waan salaamaya ilaahayo ummadan rabbiyo, ummadan ilaahay Soomaaliyeed meel loo wado ma naqaane, ilaah ummadan Soomaaliyeed kala qabo yaa rabbi.